السلام عليكم ورحمة الله. waxaynu ka hadli doonaa maanta waxa loo yaqaano rheumatism. Rheumatism-ku marka inaga inta badan qofka aan dee dhakhtarka ahayn ama aan caafimaad ku dhex jirin, rheumatism-ku wuxuu yahay hal xanuun iyo hal shay oo xanuunada kala duwan ee jirka ku dhaca sababa ama keena. Laakiin rheumatism-ku wuxuu u kala bixi karaa marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka ama dhakhtarku doonayo inuu ogaado ilaa 5 nooc oo kala duwan ayuu inta badan u qaybiyaa, qaarna wayba ka badiyaanba. 5 nooc waxyaalaha ugu caansan waxaa ka mid ah nooca loo yaqaano Allahumma salli ala Muhammad inflammatory arthritis. Waxa kale oo ku xiga waxa la yiraahdaa degenerative arthritis. mid walba waynu dul istaagi doonaa macnihiisa iyo wuxuu qabtay iyo qaabka loo garanayo iyo waxa waynu ka sheekeyn doonaa. waxa kale aynu ka sheekeyn doonaa ama aynu soo bandhigin doonaa mid walba waxyaalaha ugu habboon ee lagu daweeyo. Marka ha naga tegin, nala joog ilaa iyo dhammaadka aynu isla gaadhayno. ka saddexaad waxa loo yaqaanaa autoimmune connective tissue disease. waynu sheegi doonaa xanuunada hoos yimaada, xanuuno waaweyn ayaa hoos yimaada oo mid walbaba u baahan in goonidiisa looga hadlo. ka afraad waxa weeyaan waxa loo yaqaano soft tissue rheumatism oo isaguna waxyaalaha ugu caansan aynu ka sheekeyn doono iyo sida uu yimaado. ka shanaad waxa loo yaqaanaa crystal induced arthritis. isaguna waxa ka mid yahay waxyaalaha waaweyn ee keena keena rheumatism ama nooc ka mid ah rheumatism markaynu soo eegno principally. ilaa hadda haddii aad nala joogto waxaanu kaa rajaynaynaa in aad inta keliya ah ee aad nagu caawin karta ay tahay in buttonkan aad subscribe garayso xagga hoose ku yaala meel ka mid ah oo adiga bilaash ku ah wax lacagana laga weydiinayo laakiin anagana dhiirigelinaya. nagu soo biir nagana mid noqo dadka aqoontan bilaashka ka faa'iideysta. Okay, aynu bilowno haddaba bal sida ay u kala baxaan mid walba waxyaalaha lagu garto sida uu dhakhtarku u ogaanayo iyo walibana siyaabaha loo daweeyo. xanuunka koobaad aynu ku bilaabaynaa waxa weeyaan xanuun loo yaqaano inflammatory arthritis. inflammatory arthritis waxa tusaale u ah ilaa iyo 4 xanuun oo waaweyn ayaa keena ama tusaale u noqon kara. 4taa waxaa ka mid ah rheumatoid arthritis oo kuwa ugu caansana, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis iyo juvenile idiopathic arthritis. 4taasi xanuun ee waaweyn ayaa keeni kara wax loo yaqaano inflammatory ama keenaba inflammatory arthritis. inflammatory arthritis muxuu yahay? qofka aan garanayna inuu soo koobno waxa weeye waa difaacaaga jirka oo gelaya ama weeraraya bas wax loo yaqaano jirkaaga, gaar ahaan meelaha laablaabatooyinka ama ha noqdaan kuwa jilbaha ama kuwa xusullada ama meelaha jirku ka laablaabmo, jointiska meelaha loo yaqaano ayay weerarayaan. marka difaacaaga jirka ayaa jirkaaga qayb ka mid ah weeraraya, waliba gaar ahaan jointiska. Okay, calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto waxaa ka mid ah haddaba in aroortii markuu qofku soo tooso ay jirkiisa oo waliba gaar ahaan laablaabatooyinku inay isku jiraan la moodo adag yihiin, stiffness ay ka muuqato. adaygaasi horta waxyaalaha ugu caansan weeye. daal fara badan buu qofku ayuu leeyahay. waxaa kaloo leeyahay xanuun oo waxyaalaha keenayaba inuu joint pain dhaco iyo marka dambe muddo sii socotana uu barar iyo ay yimaadaan iyo wixii la mid ah. waxyaalaha lagu daweeyo waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano qofka haddii physical wax la yidhaahdo oo u baahan iyada lafteeda muxuu ahaa si gaara looga hadlayo qaabka loo daweynayo. waxyaalaha lagu bilaabo waxaa ka mid ah dawooyinka loo yaqaano anti-inflammatory drugs. dabadeedna haddii kuwaasi wax ka qaban waayaan dawo kale oo corticosteroids la yidhaahdo la siiyaa ama nooc ka mid ah corticosteroidska. dawooyin kale oo dabadeedna DMARDs la yidhaah ayaa loogu daraa. kadibna haddii uu masalan wadanadan joogo oo kale biological therapy wax la yidhaah wadanada reer galbeedka iyo dadka dee waxoogaa dhaqaalahooga horumaray haddii loo qaban karo waqtiga marka kuwa hore lagaga quusto ayaa loo qabtaa. inkasta oo iminka iyaga laftoodiiba ay
dhaqaalahooga iyo systemkooga una aad ugu fiicnayn waxyaalaha wax ka qabashadooda dadka laysta aad u dheer la geliya. Physical therapy ayaa isna jirta. Marka physiotherapy-gu inta badan waxaa loo qoraa in uu noqdo late stage-ka, xilliyada dambe inuu noqdo ayaa loo qoraa. Laakiin haddii ay dhacdaba in lagu qoro, waxaan arkay dad badan oo loo qoray, waliba gaar ahaan dadkan inta badan Ingiriiska iyo reer galbeedka jooga, waliba Soomaalida, waynu diidnaa oo qofba waxba layma qaban, waa lugtaada hal lagu duugaa laygu yiri, waxba layma qabanayn. Laakiin waxaa laga yaabaa hadduu joogtayn lahaa inuu muddo kadib u dareemi lahaa wanaag. Marka qofka physiotherapy-ga loo qoro wadanadan jooga reer galbeedka, runtii waa shay wanaagsan, naftaadana wax badan buu u qabanayaa. Iska adkaysta maalmaha horeysa, gacmaha lagu jiijiidayo, lugaha iyo muruqyada lagu duugayo u dhadhow muxuu ahaa laablaabitooyinka gacmaha iyo lugahaba. Insha Allah kama dambaysta waa ay wanaagsanaan doontaa, khayr bayna ku damayn doontaa. Okay, kaasi waxaynu ku dhaafaynaa, waayo wuxuu u baahan yahay mid walbaaba in sidiisa looga hadlo, mid walbana sidiisa waan uga soo hadli doonaa. Nooguna reeba xagga hoose commentigiina, qofkii dadku say u bataan baynu uga soo hadli doonaa 5tan ka ugu badan ummadda saameynaya. Okay, kan waa kii koobaad, waxaynu nidhi difaaca jirka oo weeraraya joints-kii. Ka ku xiga wuxuu noqonayaa degenerative-ka, waxaynu nidhi oo ah degenerative arthritis. Isaga waxa sababaya sida ereyga ka muuqata degeneration-ku waxa weeyaan inuu wax burburo, baaba'o, intuu soo baaba'o daato. Marka degeneration waa burbur, waa cells-kii ama unugyadii ku yaalay gidaarka ay ka leedahay joints-ka ay leeyihiin oo burburay. Kaasi waxa tusaalaha wax loo yaqaano osteoarthritis, waa the most common xanuunka ugu caansan ee ku dhaca lafaha. Kaasi ayaa sababa degenerative arthritis. Isaga sidii kii horeba u lahaa, waxyaalaha aad ku garanayso waxaa ka mid ah oo dee laga wada siman yahay xanuunkii horta ku dhacayay, oo qofkan rheumatism baa marka la leeyahay xanuun buu horta ka cabanaya joints-ka iyo meelaha ay lafuhu iskaga yimaadaan ama laablaabitooyinka muxuu ahaa jirka. Waxa kale oo laga yaabaa markuu muddo haya xanuunkani inay stiffness simaato, isaga waxaa aad iyo aad waliba in uu dhaqaaqi ku adkaado oo reducing mobility wax la yiraahdo ay ku dhacdo. Isaga sidii dawooyinka dawa ahaan way isku dhadhow yihiin, laakiin waxay ku kala duwan yihiin sida loo siini qaabka pain relief-ka. Isaga waxyaalaha loo doorbiday ugu horeeya waxaa ka mid ah in la siiyo paracetamol-ka iyo NSAIDs-ka hore soo sheegnay. Haddii qofkaas haddaba leeyahay hadda midha u fiirso, haddii qofkaas leeyahay miisaan culus leeyahay, miisaanka culus uu leeyahay waa inuu rido. Waxyaalaha aadka u caawinaya qofka waxaa ka mid ah degenerative disease-ka qaba in weight management lagu sameeyo, qofka weight-kiisi hoos loo dhigo. Qofka waxyaalaha loogu dhigayo waxaa ka mid ah in lifestyle-kiisi la bedelo, cuntadiisi la bedelo, habnololeedkiisi la bedelo, kadibna loo bilaabo exercise sida orodka iyo jimicsiga nooc ka mid ah. Waxyaalaha kale loogu darayo iyadana waxaa ka mid ah physiotherapy, oo qofka physiotherapy-ga ay loo qoro. Physiotherapy-gu waxa weeyaan runtii department aad u ballaaran, una baahan in aynu la qabatino hadaynu Soomaalina waa wax nagu cusub. Duugitaankii aynu naqaanay unbaynu ama riixii aynu u naqaanay hore unbaynu moodaynaa marka la yidhaha physiotherapy. Haddii ay suuragal tahay xilliyada cases-ka ay hawluhu adag yihiinna in loo sameeyo joint replacement, oo haddii knee-ga oo kale laga bedelo, masalan in jilibka oo kale haddii qofka meel ay suuragal ku tahay uu joogo in laga bedelo, jilibkii waa laga bedelayaa marka la yidhaha. Laakiin taa lafteeda inagu aad baynu uga gaabinaa. Waa run, waa qalliinkuna waa dhib badan yahay. Markaad ka soo baxdo qalliinka kadibna muddo ayay kugu qaadanaysaa inaad socodkii iyo aad la qabsato hab socodkii. Laakiin noloshaada inta ka hadhay ay wax badan ka taraysaa arrinkaasi.